السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تشرفت لك سؤال هذا يوتيوب بيج كان عمر شعب وكر عوض وحصل فرنقان دونا كلن كوينا وحير كورك صودا ما هذا جوري أول ترافض كلن كاس وجود هي كوحة ما يونايتد اف سي 20 كوحة كدسن هوريالك دالكا هولن كلن كاس وكسودا ما هذا بربردا حالي هلا والسداف واي أنا waxaa ku saadaalnay kulankaas inuu noqon doono kulan goolal badan ee kooxda Man United dhaliso laakiin maysan noqonin oo waxay noqotay kulan hal iyo hal ah waxayna kooxda FC Twente soo bandhigtay runaantii ciyaar aad u fiican oo waxayba samaysay kubadda ayay la qaybsatay kooxda Man United oo haddii la fiiriyo kubadda haysashada almost waa iska ag dhawaayeenba xitaa shuudadka la isku riday kooxda Man United inkastoo 19 shuud ay riday wax micno ay ku fadhiyeen 19kaas shuud ma lahan oo wax gool u dhashay waa halkaas shuud oo Bruno oo Eriksen u riday ayaa ka jirtay goolka kooxda Man United waxa uu dhaliyay Eriksen FC Twente ayagana goolkooda waxa waaye waxa ka caawiyay assistiga ka caawiyay ishag Eriksen ka caawiyay asaa Bruno qalday asoo isdajin karo Bruno qalday waxa waaye waana naga dhaliyay oo waliba waxa waaye xilli xun naga dhaliyay marka macallin Ten Hag teamkiisa waa teamkan FC Twente horta hadaa idin sheego waa niman oo macnaha yaraantiisa taageeri jiray waa niman oo soo maro taariikh ku soo maray tababarnimo haddii aan la ciyaaryahanimo haddii aan leed marka hore wax sheegay wuxuu yiri kooxdan koox aan rabay inaan ka raayo ama inaan u baxo maba ahabo oo kooxdan waxay ku fiicneed anoo ayaga matalaya inaa macnaha aan shaatigooda aan watamaan in ayaga kasoo horjeesta maba jecleen haddana wuxuu sameeyey barbardhac hal dhibic uu siiyey waxaan dhihi karnaa inuu ka qalleeyey inkastoo soo qalleysaysa ka een tabarta naga ahayd oo line upka uu la soo galay macallin Ten Hag haddii la fiiriyo line up culus oo ahayo maba ayanba yani line haddii la ilahay ciyaartooyda muhiimka inuu fadhiisiyey tiimkiisii horeeto macnaha u danaya la ilahay laakiin wuxuu kusoo bilaabay Bruno kusoo bilaabay Diallo kusoo bilaabay Rashford kusoo bilaabay Eriksen Ugarte Martinez Dalot Mazraoui Onana raggaas dhan waa lagu soo bilaabay أنا اسمه دين برونو والوصل بلعب دون اسمه دين ديالو والوصل بلعب دون مسدين sidoo kale Ugarte waa lagu soo bilaabi doonaa misdeen marka waxaas dhan ku soo bilaabay saasay tahay natiijo keen horta Bruno fiican ee kooxda soo bandhigtay Man United Bruno qurxan ma sha Allah waay laakiin maxay kugu taalaa gool inta naga haystaabanay si kastoo sidii kulanka Crystal Palace camal Bruno qurux badan soo bandhignay kubadda naga haysanay jaanisa badan abuurnay goosha dhamaadkeedii wax qaaba goolal ku dhalnaaba laanaay finishingka ebernaga in Xerxes loo noobaha noo waxa waa diish amal u dheeraa diish ninkaas ku fiicnaan la ku soo bixi lahaa wallahi laakiin gool dhaliskiiba laga haystaa sidoo kale Rashford waxa uu dhalin ama Diallo asigana waxa ku bad abuurkiisa waa fiican laakiin gool dhalinta laga haystaa marka Bruno ad gool u dhali karo Janus ku helay Musa dhalin Eriksen waxa hal mar Janus fiican meel ka helay si la yaqaan oo shooday gool fiican gool u dhalad noqot laakiin maxay kugu taala gaalo isaga xaar asoo Bruno qurxan dheelay Eriksen oo ciyaartiisa ma sha Allah Bruno ka Bruno fiicnaa hal sameeyay maadaama uu gool u dhibtay macallin Ten Hag waa taqaana ninka qalad galo waxa hore laga akad leeyina la bedela Bruno ma tan ku badal qalday lama bedelin Eriksen la bedelay asoo madaxa loo xanaaqsan oo baxay muxuu isla xanaajina asaa Bruno dhibtay goosho dhaliyi goosho in laga dhaliyay labadaba asaa ka shaqeeyay madan asaa noo dhaliyay mid kale tan oo naga dhaliyay asaa dhibtay marka waxa Bruno caawado waa ka tiilay tacbaan oo ahaa wax kulanka hore to Crystal Palace awa kiyaaban kanoo caawa ka darnay zero marka macallin Ten Hag waxa marka ciyaarta 67 mar soo Garnacho iyo Haaland iyo soo gashtay Mason Mount iyo ragaas inuu soo gashtay Kobe Mainoo xitaa waa soo geliyay laakiin waxaas dhan waxa keenay nimanka dabadii xirteen waxayna ku dhamaatay hal iyo hal haddii asla fiirino positionka caadi ku badhaysashada waxa almost 56 iyo 43 kale ahayn waxyaabahaas dhan waa iska ag dhaweyn goolasha shuruudka dil 19 shuud ku ridnay laakiin ninkii kooxda ciyaartaas fiirsaday Man United goorma 19 shuud riday waa ku doodi kariya maba arkin maane 19 shuud oo sax ah u ridnay maba arkin waxyaabo cirkiska malaacni iska ahayn marka waxayna ka tusinaysaa shoot accuracy anaga 26 oo ahay boqolkiiba kuwan kala naga fiicnaa Horyaalka la aqoon ka dhiiraan 42 shoot accuracy marka hadii loo fiiriyo waxa baasaska almost iska ag dhaweyn 540 baas sameeyay ayaga 400 sameeyay niman Bruno nala qaybsado Old Trafford oo joogto Bruno lagu la qaybsado bareej lagu qabto waxa macallin Ten Hag waxa ciyaartooyda aad kula aad ma ku lahaa baas sababtoo leen abso soo gili ciyaartooy wada adag soo gili hal cunug yar hal qof oo yar ma soo gelinin nin daalan ma soo gelin ay natiijo keenayeen marka macallin Ten Hag aad kuma laha anyway sheekada waxay ogtahay sanadka hore Champions League ma ka dhirin camal
saan kulan nagu dhago iyo kulan laga raay iyo kulan oo rafaad kusoo raayna iyo waxaas ahayd. hadda jaa waa nagu bilaabtay Europa League-na waxaa waaya Ten Hag Plan B-giisa hadduu natiijo ka keeni waayo oo sheekadan ku socdo oo kulan oo Europa League soo qaadi waayo waxaa waaya top 4 la isku mahallay karo. top 4 hadduu geli waayana oo Champions League usoo bixi waayana xitaa FA Cup waa soo qaato kana ma laga yeelaa sanadka hore waxaas uu ku fakaday tokaan lagama yeelaa ilaa New Year-ka January la siinaa haddii ilaa January ninkan oo Europa League uu kasoo bixi waayo group stage-ka top 4 kana uu u tartami waayo uu ku jiri waayo waxay u badan tahay in Van Nistelrooy asinta la buriyo Van Nistelrooy loo dhiibo daqiiqad kuma qaadanaysaa leen nimanka inayso laay ninkan asaani oo gacantiisa isku tooganaa Bruno Fernandes markuu bedelay Eriksen lama rabin in Eriksen inuu bedelo ninka dhammaan ku bedel saxayo oo si u dheeraada art ayaabis oo siibay waxaa la rabay inuu Bruno bedelo Bruno waxba ma haynin Bruno ku bedel qalqalday hadda Janis ugu dambeeyay ay leeyihiin oo isdheynay ka faa'iideystay free kick aan isdheynay Bilzong inuu madax la soo saaro la rabay waa qalad marka waxa waaye ninkii bedel lama bedelay ninka bedel leeyahay inuu bedelaa Eriksen inuu bedelo meehan Diallo inuu bedelo meehan waxaa la rabay Rashford bas inuu bedel lahay iyo Zirkzee hadduu bedel lahaa labadaas bas iyo Bruno saddexdaas inuu bedel lahaa oo booskooda Garnacho iyo Højlund soo gasho lahay waxaa waaye ciyaarta toosleed markaasaa isku dheelay macna Ten Hag marka waa kale Europa League barrage aan ku bilaabanay laakiin dhib mar ciyaar oo gelin dambaa la kulan badan ah Jan saasana Europa League waxaa waaye qaabka hore oo lagu dheeli jiray waa laga bedelay marka Koreas United waa soo baxay muhiim ah marka ciyaartoydiisa waaweyn dhanna waa soo gashay oo hadda waxaa isdheynay qaarkood maba dheeli doonaanba wuxuu keed u dhiga doonaa kulanka weyn ee Tottenham laakiin maysa dhicin marka kooxihii kale dhan waa badiyeen baad almost waxaa waaye Lazio Galatasaray iyo waxaas dhan waa badiyeen Slavia Praga AS kooxa waaweyn meeshaan wax ku jiro oo badiyey waxaan kala lambaray Real Sociedad hadda barrage lagu qabtay annaga barrage lagu qabtay Nice barrage lagu qabtay habeen dambe Ajax ayaa dheelayaan marka waxaa arkeena Europa League waxaa groupka ka soo baxayna laakiin Ten Hag waxaa waaye serious inuu serious u yahay koobkan waxaa ku dareemaysaa shaxda uu kusoo galay fiiri waa shaxda Premier League uu kusoo galay saasay tahay natiijo waa keeni waay marka ciyaartoyda wax si fiican u dheelay aniga hadda Bruno-giisa ka helay oo si fiican u dheelay waxaa ka arkay Mazraoui iyo Dalot Onana Ornio ninkaas waxaa ka khaldanayo Bruno markii gooshina niga dhelinay ninka meesha ka soo socdo oo Bruno ka soo socdo garabka inuu istaaga la rabay intuu ka cararo garabka kaleeto nin uu istaaga markaasoo meeshii ninka uu ku aadanayo Bruno u baniyay xariifkan waa ku jaglosi Bruno waa ku shuudilay waa dhalata hadduu laakiin booskiisa xiran lahay Bruno meesha ka dhashay oo joogi lahay inay banaanka mar leedahay yaa ninka dooshooda u baniyay waa dhalata Onana marka useless oo ay kulankan Mazraoui iyo Dalot waxa eed lahayn waxa ka jira Diallo iyo Rashford asna caawa si fiican u dheelay Rashford iyo Diallo Dalot Mazraoui Ugarte waa fiicnay Martinez waa fiicnay Eriksen waa fiicnay laakiin waa almost 50-50 goolku dhibtay Bruno 0 ay Zirkzee 0 ay marka waa kaasa intaas ay kusoo gabagabeynaa falanqaynta kulanka waa in kulanka ku xigta ka gaarayno oo kooxda Man United iyo falanqaynta ciyaaraha kale taba like share iyo subscribe kan naga ilaamin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.